dowladda Turkiga ayaa si toos ah waxay u keentay qalabkii ugu dambeeyay casriga ah ee loogu talagalay in lagu qodo shidaalka Soomaaliya kadib markii wasiirka badaroolka dalkaas uu si cad warbaahinta iyo baarlamaanka dalkiisa uu sheegay in dowladdiisa ay ku dhaqaaqday qaabkii ay u soo saari lahayd shidaalka Soomaaliya. saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa si wadajir ah u sheegay in hawshan ay tahay mid diiradda lagu saarayo sidii loo saldhigi lahaa dhammaan dhaqdhaqaaqyadaasi guud ee la xiriira in la gaaro hadafka ah in la soo saaro shidaalka Soomaaliya ilaa inta ka dhiman sanadka 2025 sida ay sheegeen mas'uuliyiinta iyo xubnahani. warbaahinta Xuraasi waxay indhaha soo marisay bogaga gaarka ee lagu hadlo arrimaha dhanka kheyraadka dabiiciga ee dowladda Turkigu ay leedahay iyadoona la soo dhigay muuqaalka iyo khudbadda wasiirka badaroolka dalkaasi isagoona ka hadlay arrinta guud ee la xiriirta soo saarka shidaalka Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin iyo xubno ka tirsan dhinaca Ankara oo warbaahinta la wadaagay xogaha iyo macluumaadka arrintaasi ku saabsan. saraakiishu waxay tilmaameen in ay dowladda Turkiga markan ay wado dadaalkii ugu dambeeyay ee la xiriira dhanka iyo fulinta howlgalkaasi iyadoona saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnahan ay sidoo kale diiradda saareen in la dhaqaajiyo ama la fuliyo howlgal cajiib ah oo ku aadan in badda Soomaaliya laga soo saaro shidaalka sidoo kalena la sameeyo aagaga cusub oo loogu talagalay in lagala socdo dhaqdhaqaaqyada guud ee dhinacaasi ka jira si looga hortago maraakiibta iyo dalalka shisheeye ee doonaya in ay ka hortagaan diidmadana ama diidaan Soomaaliya u diidaan sida loo soo saari lahaa kheyraadka dabiiciga ee baddeeda ku dhex jira. ilahan muhiimka ayaa dhanka kale waxay noo sheegeen in ay wadaan abaabul kale oo la xiriira arintan iyadoona saacadii u dambeeyay ee socdeen dhaqdhaqaaqyo iyo isku dayo kale oo ku saabsan qaabka dowladda Turkiga ay u gaari karto hadafkooda ugu weyn ee dhinaca badda la xiriira sida mas'uuliyiin ka tirsan Ankara ay ku warameen. saraakiisha iyo mas'uuliyiintu waxay dhanka kale hoosta ka xariiqeen in maalmihii la soo dhaafay ay wadeen isku dayo kale oo ku saabsan qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafkaasi si meesha looga saaro arrimaha guud ee curyaamin kara badaroolka iyo kheyraadka Soomaaliya ku jira sida ay sheegeen xubnahani. ila waradidan ayaa dhanka kale waxaan ka soo xiganay in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan in la sameeyo howlgal gaar ah oo lagu gaarayo badda gunteeda hoose. waxaa xigi doona abaabul qorshe kale taasoo ku saabsan haddii Ankara ay ku guulaysato qaabkan in ay sameyn doonto isku day kale oo la xiriira in la sameeyo qorshahaasi. wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan arrimahaasi iyadoona dhanka kale mas'uuliyiinta iyo xubnahan ay bilaabeen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan arrimaha hadda socda taa oo ka dhigaysa saraakiisha iyo mas'uuliyiintuba in ay bilaabaan sidii ay u raadi lahaayeen dhaqdhaqaaqyo iyo isku dayo kala duwan sida ay xubnahani ku warameen. warbaahinta Xuraasi ayaa baaritaan waxay ku sameysay dhacdooyinkaasi iyadoona mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ay ku gaarayaan sidii loo saldhigi lahaa hadafka guud ee arrintaasi ku saabsan si meesha looga saaro isku day walba oo arrimahaasi la xiriira sida ay sheegeen xubnahan u waramay dhanka iyo warbaahinta. wasiirka badaroolka Turkiga ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadaasi guud ay yihiin kuwa diiradda lagu saarayo qaabka ugu fudud ee la ogaan karo taasoo keentay in mas'uuliyiinta iyo xubnahanba ay bilaabaan isku dayo kala duwan oo arrimahaasi la xiriira oo haddii ay suuragashana ay durba bilaaban doonto sidii dhinacyadan ay u raadin lahaayeen dhaqdhaqaaqyadaasi guud waa sida ay hadalka u dhigeen. muddooyinkii u dambeeyay waxaa jira abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo ay wadeen xubnahan waxaana saraakiisha iyo mas'uuliyiintuba ay bilaabeen in ay sameeyaan sidii loo gaari lahaa gunta hoose ceelka shidaalka Soomaaliya iyo in la soo saaro hadaf ahaan qaabka ugu fudud ee loo gaari karo meelaha ku habboon ee ku aadan in Soomaaliya ay ka soo saari karto dhanka shidaalka waa sida hadalka loo dhigay. dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee jiray ayaa waxay durba bilaabeen in la sameeyo abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyadoona wararka soo baxaya
ay intaa ku sii darayaan in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo arrimahaasi ku saabsan waana ta keentay in saraakiisha iyo mas-uuliyiintuba ay durba bilaabaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo arrimahaasi la xiriira taasoo keentay in isku dayga uu noqdo mid lagu ogaanayo xogaha iyo macluumaadka guud ee arrimahan ku saabsan haddii la gaaro hadafka ama ujeedka ugu weyn waxa uu noqon doonaa sidii diiradda loo saari lahaa isku daygaasi waana midda keentay in la sameeyo dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan arrimahaasi wixii warar iyo dhacdooyin ka soo kordhaa baahinteena tan xigta ee warbaahinta xuraasi ku daawo waad ku maasan tahay daawashadii ku xirnaanta janalka iyaga wixii tala iyo tusaalaana qaybta hoose ayaad noogu reebi kartaan janalkan haddii kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo riix gamareelka si aad u gaarto ama si aan u gaarno hadafkeena ah isla markaana adiguna aad u rukumato warbixinada iyo dhacdooyinka waad ku maasan tahay taageerada iyo garab istaagga aad noo muujisay